الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. suuradan aal cimraan ayaa la yidhaahdaa. alimaam athaclabi tafsiirkiisa wuxuu leeyahay waa suurad madani ah. xuruufteedu waxay tahay 4,525 xuruufteeday tiriyeen culammada muslimiinta say ugu dadaali jireen qur-aanka oo dhinac walba uga dadaali jireen. xuruufteeda wuxuu leeyahay waa 4,525 xaraf. kelimaadkeedu waa 3,000 oo kelimo 480 kelimaadka suuradda waa 3,480 kelimo. aayadaheedu waa 200 aayadood. waa suurad madani ah. ilaa aayadda 83 waxay ka warramaysaa wafdi najraan nebiga uga yimid iyo nabiga waxyaalo dhex maray, waxyaalo ayagaa lagu xujeeyey iyo waxyaalo ay ruduud ku ah, waxyaalahaasay ka warramaysaa. marka aayaadkaas waxay ku soo degeen wafdi najraan. waxay ahaayeen 60 nin. rasuulka ayay u yimaadeen. waxaa ku jira 14 nin oo ashraaftooda ah. 14kaas misana waxaa ku sii jiray 3 nin oo iyaga maamusha. nin amiiru u ahaa waxaa lagu magacaabahaya cabdulmasiix. ninka socodka iyo rixlada tandiime ayuu ahaa. al-ayham baa lagu magacaabayey. ninna shiikhooda, caalimkooda, imaamkoodu ah. carabtu baqaayaadkii diintii ibraahim bay haysteen, jaziira carabiya deganaa. laakiin nasaarada yurubta ahayd ayaa calaaqa la lahayd. marka ninkaas iyaga shiikha u ahaa, imaamka u ahaa, ayay calaaqa la sameeyeen boqorrada ka mida yurubta wakhtigaas. marka diinkoodiiay u qurxiyeen, diinkoodii buu galay. kanaa'is bay uga dhiseen dhulka najraan. dhaqaalena way siiyeen. waa sida hadda ay yeelaan wixii shar wada ama kanaa'is ka daba orda ama dadka muslimkaa dhib ku haya ayay dhaqaalo siiyeen. berigaasna sidii ay ahayeen ay hadda yihiin. rasuulka ayay u soo galeen, masaajidkiisay soo galeen waqti rasuulka iyo saxaabadiisu ay casr dukadeen. waa is soo qurxiyeen. niman dhaadheer oo qurxoona way ahaayeen. dhar aad u qurxoona way soo qaateen. markii saxaabada iyo nebigu ay salaaddii ka baxeen innakuna waa dukanaynaa noo saamaxa. rasuulkuna iska daayuu yidhi. waxay salaad ku sheegeen bay sameeyeen oo ay u dukadeen. qorxadu meeshay ka soo baxday. kadib waxaa rasuulka la hadlay ninkii u ahaa maamulaha iyo ninkii u tandiiminayay rixlada. nebigu wuxuu ku yidhi aslima soo islaamigu
أيغان waxay dhaheen aslamna qablaka adiga ka horaan islaamanay markaasuu nabigu yiri kadabtuma yamna'ukuma min al-islami du'aa'ukum lillahi waladan wa ibadatukuma as-saliba wa aklukuma al-khinzir been baad sheegaydeen mana adnaa islaamin sidaa tihiin islaamnimo ma aha waxaa islaamnimada idiin diidan ilaahay oo aad wiil u yeesheen saliibkood caabudiin khinsiirkood cuntiin markaasay waxay dhaheen in lam yakun waladan lilaahi faman abuuh dan ilaahay dhalin ciisa haddaba yaa dhalay saasay dhaheen wakhaasamuuhu jamiican fii ciisa nabiguna wuxuu ku yidhi alastum taclamuuna annahu laa yakunu waladun ilaa wahuwa yushbihu abaahu miyaadnaan ogayn walad inuusan jirinin ilaa aabbihiis buu shabbahaa markaasay dhaheen bala waa ognahay alastum taclamuuna ana rabbanaa xayun laa yamuut wa anna ciisa ya'tii calayhi alfanaa miyaadnaan ogayn rabbigeen inuu nool yahay uusan dhiman ciisana ay geeriyo ku imaato markaasay dhaheen bala markaasuu ku yidhi alastum taclamuuna ana rabbanaa qayimun calaa kulli shayin yaxfaduhu wayarsuquh miyaadnaan ogayn rabbigeen inuu shay kasta maamulo oo uu xifdiyo oo uu risiq siiyo qaaluu bala fahal yamliku ciisa min dalika shay-an arrimahaasoo dhan wax ciise uu ka hayaa ma jiraa buu ku yidhi markaasay dhaheen la wax uu ka hayaa ma jiraan markaasuu nabigu ku yidhi alastum taclamuuna ana allah laa yakfa calayhi shayun fi اlardi walaa fi الsamaa miyaadnaan ogeyn ilaahay inayna waxba ka qarsoonayn samada iyo dhulka markaasay dhaheen bala markaasuu nabigu yidhi fahal yaclamu ciisa min dalika shayan ilaa maa cullim ciise waxaas wax ma ka ogyahay markii laga reebo wixii loo sheegay oo ilaahay uu fahamsiiyey qaaluu laa waxba kama oga bay qaala faina rabbana sawara ciisa fi الraximi kayfa yashaa laa ya'kulu walaa yashrabu walaa yuxdith rabbigeenu ciise raxim buu ku abuuray oo uu ku suureeyey rabbigeenu wax ma cuna waxna ma cabo mana xadao qaaluu bala قال ألستم تعلمون أن عيسى حملته أمه كما تحمل المرأة ثم وضعته كما تضع المرأة ولدها ثم غذي كما يغذى الصبي ثم كان يطعم ويشرب ويحدث ميادنا الأغين عيسى إنه هو يديس أورك قاضي سيدا هوانت أورك قاضو كدبنا أي دجسي سيدا هوانت ولد كذا يدجيدو kadibna la quudiyey sida anuga yarka loo quudiyo kadibna uu nacabi jiray oo uu cabitaan nacabi jiray xadathna uu lahaa kaasay dhaheen bala fakayfa yakunu hada kama zacamtum suu ilaah ku yahay saadinku sheegaysiin intaasoo dhan aad qirsan tihiin suu ilaah ku yahay marka fasakatu oo iska aamusan markaasay soo degtay sadru suurati aali cimraan ilaa bidcin وaثamaaniina aayatan minhaa ilaa dhowr iyo 80 aayadood ayaa marka barnaamijkaas ku soo degtay alif laam miim waan soo marnay fii suurati اlbaqara allahu allah لا إله إلا هو لا معبود بحق إلا هو الله مجره إلى حق لو عابده وأن استقعه الله لا إله إله مجره بحق لو عابده إلا هو استقماه مرك الله هو المبتدأ لا إله إلا هو نوى خبرك الحي القيوم ومد نول oo maamula makhluuqiisa oo u taagan makhluuqiisa
وخبر بعد خبر. نزل عليك الكتاب وحوكوسو دجي كتابك كركا بالحق كتابك سو حق عدالة كل سن كسوغا مصدقا رميسا وافقسا لما بين يديه وحي إساق كهري أو كتبه الرميسي وهميي وحي إساق كهري أو كتبه أيوه هميي أو وافقسين. وأنزل التوراة والإنجيل وحا سود جي توراة إنجيل من قبل الكتاب كتاب كان قرآن كهر سود جي هدى للناس يقول لبدود هنون ضدك أؤه. وأنزل الفرقان كتب حق يبادلك كلا صارتان إلهي وسود جي إن الذين كفروا كوا كفريي أما وفدك النجران هالنقضين أما أمتك لها النقضين. إن الذين كفروا كوا كفريي بآيات الله آيات الله كفريي لهم عذاب شديد وحيليهن عذاب أبك والله عزيز الله هو مد أبك وآن لغا أتكين ذو انتقام آرشان عليه وضدك عاصية كأرسل. طيب نزل عليك الكتاب بالحق حق بوكسو الدجيي عدل بوكسو الدجيي أحكامتي سنة عدل بي كل سنتهي أخبارتي سنة صدق بي كل سنتهي مصدقا لما بين يديه سقوا خميي وحي كهري كتبتي كهري خميي ووحي حقه كجري سيدا أي أشيغين إسو مركوا إسرميين كتبتي إسا كهري هي كتاب كان وإسرميين كتبتي هر أخبارتي أي شيغين أي إسا كم وقتا مركوا خميي. وأنزل التوراة والإنجيل وهو سودجي الله توراة إنجيل. توراتنا موسى يكسودجي الكليم إنجيلنا عيسى ابن مريم يكسودجي كتبت القرآن كأرابته وهي أدوغ الشاكيان وزن كصرفك التوراة هي الإنجيل بأدوغ الشاكيان وزن كود مكويه أبو حيان وحولي مركا خلدان يهين dadka waxaas ka sheekeeyo waayo waa laba lafdi oo aan ahayn carabi sarfuna wuxuu dejisan yahay الكلمات العربية الكلمات العجمية إن لم ميزان أما اشتقاقه للقوابه وحلوه فاليوم مركا waa laba kitaab oo Ilaahay soo dejiyay oo midna injiil lagu magacaabo midna tawraat lagu magacaabo labadooduna ay ku soo degeen luqatu اللغة العبرية أو اللغة اليهود ku hadasho tawraatna luqada cibriya ku soo degay injiilna luqada cibriya oo luqada ciisa ahayd. وأنزل التوراة والإنجيل من قبل القرآن من قبل الكتاب أيها الله سودجي حوغا ماشا النبي تشريف بأوجرة ونزل عليك الكتاب وحو إلهي كل خطابي النبي إن ويهي متكي كتاب كان سودجي لكن توراة iyo injiil labadii nabi oo lagu soo dejiyay meesha lagu sheegay marka waa nabiga oo si gaar loo sheegay tashriif awgeed maadaama ambiyada wax dheer yahay rususha ka fadli badan yahay. hudan linnaas hudan waa masdar marka waana xaal
wuxuu xaal u yahay altawraat walinjiil. marka hudayni lama dhihin, yani lama tafniyeyn xaalka, waayo masdarka lama tafniyo lamana jamciyo. marka towraat iyo injiil ayuu soo dejiyey iyagoo hanuun ah. goormay hanuun ahaayeen? waa intii aan la taxriifin ama aan la tabdiilin, hanuun bay ahaayeen. dadka way hanuuninayeen, kutub ilaahay bay ahaayeen, kutub ilaahay ka mid ahaayeen. laakiin markii taxriif galay, markii tabdiil uu galay, hanuunnimadii way ka baxeen. marka goormay hanuunkaas lahaayeen? waa markii ayna gacantoodu gaarin. waأnzla الfurqaan, waxau ilaahay soo dejiyey kutub wax kala saarta. waa jinsu اlkutub الsamaawiya marka alfurqaan. oo maxay kala saaraan? xaq iyo baaطil, diin iyo kufri, sawaab iyo khata bay kala saaraan. marka kala saarka yaa iska leh asharaa'ic samaawiya. bini aadamka iyaga uma taalo inay dhahaan waxaanu waa baatil, waxaanuna waa xaq. ra'yigoodu ma gaari karo. marka kala saarka xaqa iyo baatilka waa wax diin uu ka shaqeeyo. laakiin bini aadamka afkaartooda iyo aaraa'dooda waxaanu waa xaaraan, waxaanuna waa xalaal, waxaanu waa xaq, waxaanu waa baatil uma yaallo. waa shaqo kutubta ilaahay uu soo dejiyo ee sharaa'icda samaawiga ay ka warranto. ina aladiina kafaruu biaayaati illah, kuwa ku kufriya aayaadka allah oo kuwii aayaadkan nusuulkooda sabab u ahay wafdu najraan iyo kayrkoodba ah, lahum cadaabun shadiid, waxay leeyihiin cadaab adag. wallaahu casiizun, allahna waa rabbi qaalib ahon laga qaalib noqon, duntiqaamin ee ka aarsada midka caasiya oo ku kufriya. ina allah laa yakfaa calayhi shayun, kama qarsoonaado shay fi lardi dhulka walaa fi samaa'i samada. ilaah waxba ugama qarsoono. cilmigiisu waa shaamil, wax ka qarsoon ma jiraan. huwa aladii yusawirukum, isagu waa midka idin suureeya fi larxaami, raximyaalka idinku suureeya. kayfa yashaau, sida uu doonayona idinkugu suureeyo. taswiirkaas ilaahay baa iska leh, mid dheer, mid gaaban. midkii uu suureeyo isagoo dheer lama gaabi karo, midkii isagoo gaaban uu suureeyo lama dheeray karo, midkii isagoo madow uu suureeyo lama cadday karo, midkii isagoo cad uu suureeyo lama madoobay karo. taswiir ilaahay uu leeyahay. kayfa yashaau, laa ilaaha ilaah ma jiro ilaa huwa, laa ilaaha bixaqin, ilaah xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa huwa, isaga ma ahe. alcasiizu waa mid adag, alxakiim oo xikmad leh, oo sharcigiisu uu ku dhisan yahay xikmad. ina allaha allah laa yakfa calayhi shayun fi lardi walaa fi samaa'i, waxba kama qarsoonaa samada iyo dhulka iyo samadaba. cilmigiisu wax walba ayuu og yahay. huwa aladii yusawirukum, allah waa midka idinku suureeya fi larxaam. suuradu marka waa hay-ada shaygu uu ku samaysan yahay. markii laysu gegeeyo hay-ada uu yeelanayo waa suurada. fi larxaami kayfa yashaau, yashaau mafcuulkeedu marka waa maxduuf, yani kayfa yashaau an yusawirakum, kayfa yashaau taswiirakum ayuu idin suureeya. kayfa marka waa xaal
laa ilaaha illaa huwa ilaah xaq lagu caabudoon isaga ahaynu ma jiro alcasiizu waa mid qaaliba alxakiimu xikmad leh huwa aladii allah waa midka anzala calayka alkitaaba kugu soo dejiyey kitaabka minhu kitaabka waxaa ka mida aayaatun aayado muxkamaatun ee la sugay hunna aayadahaasu ummulkitaabi kitaabka asalkiisii weyn wa ukharu wa minhu waxaa ka mida aayaatun ukhar aayado kale mutashaabihaatun ee isu eg faama aladiina fii quluubihim kuwase quluubtooda zayqun uu ku dhex jiro leexasho iyo dhumitaan fayattabicuuna waxay raacayaan maa tashaabaha wixii isu ekaaday oo minhu kitaabka ka mida waxayna u raacayaan ibtiqaa'a alfitnati fitna dalabkeeda waibtiqaa'a ta'wiilihi iyo xaqiiqada fasirkeeda wamaa yaclamu ta'wiilahu xaqiiqada aayaadka mutashaabihana ma oga ila allah moogiye axad kale ma oga wاlraasikhuuna fi اlcilmi kuwa ku sugan cilmiga yaquuluuna waxay leeyihiin aamanaa bihi bilmutashaabih waxaan rumaynay mutashaabih kullun dhammaan min almuxkami wاlmutashaabih muxkamka iyo mutashaabiha min cindi rabbina rabbigeenna xaggiisa ayuu ka yimi rabbigeennaa soo dejiyey wamaa yadakaru mana waantoomo ilaa ululalbaab ilaa kuwa cuquusha le mooye mid kale ma waantoomo rabbanaa yaa rabbana ilaahay bay baryayaan markii dadku u qaybsamay oo uu u qaybsamay qayb raasikhiin iyo qayb zaa'iqiin ah ay rabbigooda baryayaan raasikhiintu waxay leeyihiin rabbanaa yaa rabbanaa laa tuziq quluubanaa ha leexinin quluubteenna oo hanuunkii ha ka leexin bacda id hadaytanaa markii aadna hanuuniday kadib wahab lanaa min ladunka noo hibay lanaa innaga min ladunka xaggaada raxmatan nooga hibay raxmad innaka adigu waxaa tahay anta adigu alwahaabu mid wax hibayn badan rabbanaa yaa rabbanaa rabbiganow innaka adigu jaamicu nnaas waxaad kulmidaa dadka liyowmin maalin laa rayba fiihi una shaki ku jirin ina allaha laa yukhlifu dib uma dhigo almiicaada ballanka dib uma dhigo aayaddan waxay ka warramaysaa qur'aanka u qaybsama muxkam iyo mutashaabih allah subxaanahu wa tacaala qur'aanka oo dhan wuxuu ku tilmaamay muxkam dhammaantii allah wuxuu leeyahay kitaabun uxkimat aayaatuh waa kitaab la sugay aayaadkiisa marka dhammaan kitaabka oo dhan wasfigaas ixkaamka ayuu ku sifaysan yahay dhammaan aayaadkiisa waa la sugay xagga alfaadda waa alfaad ka sarrayda ayna jirin xagga macaanida waa macaani ka sarrayda ayna jirinin xagga axkaamta waa axkaam ka sarrayda ayna jirinin axkaamtiisu aayaadkiisa waa la sugay marka qur-aanka oo dhan sifada ixkaamka ayuu ilaahay ku sifeeyey uxkimat aayaatuh aayad kalena wuxuu ku tilmaamay kulligiis inuu mutashaabih yahay allah wuxuu leeyahay allahu nazla axsana alxadiidi kitaaban mutashaabihan kitaab isu eko idan marka kulligiis waa mutashaabih
maxaa mutashaabihaas laga wadaa waa isu og yahay aayad kastaba aayadda kale u ogtaha xagga sidqiga runta iyo cadaaladda aayad kastaba aayaday u egta aayad uu khalad ka muuqdaa ma jirto aayad uu jawr ka muuqdaa ma jirto aayad uu ka muuqdo waxaan run ahayn ma jirto idan kulligiis marka waa mutashaabih laakiin halkan wuxuu u qaybiyey allah qur-aankii muxkam iyo mutashaabih macnaheedu waxa waaye marka kulligiis markii macnahaas la fiiriyo kulligiis muxkam ma aha kulligiisna mutashaabih ma aha qaybta badan oo kitaabka asalkiisa ah waa muxkam muxkam maxaa loola jeedaa waxa macnuhoodu uu cad yahay baa muxkam la yidhaahdo laa tajcal maca allahi ilaahan aakhar macno cad waa laa taqtulu الnafsa alatii xarama allahu ila biاlxaq macno cad waa walaa taqrabu الzina macno cad waa laa taأkulu الriba macno cad waa aayaadka markaa muxkamka ayaa qur-aanka asalkiisii ah kitaabka asalkiisa uuna u badan yahay laakiin culammadii mufasiriinta waxay isku khilaafeen mutashaabihan maxaa loola jeedaa maxaa loola jeedaa aad bay isu khilaafeen mufasiriinta ninba waxbuu ku tilmaamay ilaa cabdiraxmaan almucallimi uu yidhi ikhtalafa annaasu fii hadihi اlaayati xataa kaadat tasiiru hiya nafsuha min almutashaabih iyadoo aad mooda inay mutashaabih tahay waxaa loola jeeda waxyaalo badanay marka mufasiriinta ay sheegeen aad u badan wixii markii la rogrogona xoogaa dhidhan kama muuqdo balse hal macno oo xoogaa dhidhamaya ayaan soo qaadanaynaa mutashaabiha waxaan ka dhigaynaa sifadaha ilaahay sifadaha ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaan mutashaabih ka dhigaynaa waa qowl min alaqwaal laakiin waa qowl xoogaa macnihiisu xoogaa waadix uu yahay allah subxaanaه wa tacaala aayadbu wuxuu ku leeyahay laysa kamilihi shayء wahuwa الsamiicu اlbasiir wuxuu isku tilmaamay samiic basiir aadamna wuxuu ku tilmaamay samiic basiir إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا gacan inuu leeyahay isku tilmaamay yadullaahi maqluulah bay dhaheen yihiin allahna gacanu ayagana ku tilmaamay oo uu yidhi qullat aydiihim allah wuxuu isku tilmaamay inuu yahay ra'uuf raxiim ah ina allaha binnaasi la ra'uufun raxiim nebigana wuxuu ku tilmaamay ra'uufun raxiim inuu yahay bilmu'miniina ra'uufun raxiim wuxuu isku tilmaamay innahu istawaa cala alcarsh bani aadamkana wuxuu ka sheegay litastawuu calaa duhuurihi way is og yihiin marka xagga xoogaa macnaha guud waa isaga eg yihiin macnaha guud waa isaga eg yihiin laakiin maxay ku kala duwan yihiin kayfiyada iyo xaqiiqada samciga ilaahay basarka ilaahay gacanta ilaahay ra'fada ilaahay raxmada ilaahay istawaha ilaahay iyo basharka kuwa ku sifeeyey macno guud xoogaa oo isog yihiin laakiin waxay ku kala duwan yihiin xaqiiqada iyo kayfiyada markii la fiiriyo
sifada ilaahay marka xaqaa'iqdooda iyo macaanidooda kayfiyaadka markii la fiiriyo dadku way qaybsamayaan markaas waxay u qaybsamayaan laba qaybood فأما الذين في قلوبهم كوا قلوبتooda ay ku jirto زayq فيتبعوuna waxay raacayaan maa تشhaabaha minhu wixii isu ekaaday bay raacayaan oo ah aayaadkaas ilaahay sifadihiisa uu ku sheegay iyo aayaadkaas ilaahay uu ku sheegay sifadaha bani aadamka basharka kuwaasay raacayaan maxay u raacayaan cillada maxay tahay ibtiغaaءa الfitnati atbaac iyaga raacsanay doonaya inay fitneeyaan oo xaqi ay ka wiciyaan bay doonayaan sababkaas bay u raacayaan marka aayaadkaas mutashaabiha ah waibtiغaaءa ta'wiilihi iyo طalab inay xaqiiqadii fasiraan ta'wiilka bimacna alxaqiiqa iyo xaqiiqadii inay fasiraan wamaa yaclamu ta'wiilahu sifadahaas ilaahayna xaqiiqadooda ma yaqaano ila allah allah moogi ila allah ayaan marka ku istaagayna macnaheedu waxay tahay marka sifadaha ilaahay xaqaa'iqdooda iyo kayfiyaadkooda ma yaqaano waxaan allah ahayn laakiin ayagii way raacayaanoo waxay leeyihin waa fasirayna xaqiiqadayaan fasirayna markay raaceen ayaa waxaa soo baxday inay laba kooxood noqdeen marka koox waxay leeyihiin samciga ilaahay xaqiiqadiisu wuxuu yahay samciga basharkoo kale basarkiisuna waa basarka basharkoo kale gacantiisa waa gacanta basharkoo kale istawihiisu waa istawaha basharkoo kale saas kuwaas marka zaa'iqiin waaye marka laba sifo ama laba sababood bay u goobahayaan oo u daba socdaan aayaadkaas mutashaabiha aayaadkaas mutashaabiha kuwa muxkamka inay u celiyaan oo ku fasiraan dooni maayaan wax kaley doonahayaan wax kaley goobahayaan oo ah ama inay dad ku fitneeyaan oo waddadii saxda ahayd uga dhumiyaan ama ayagoo inay hawadooda ku fasiraan laba hadaf waaye marka ibtiغaaءa alfitnati waibtiغaaءa ta'wiili xaqiiqada ay goobahayaan marka allah keliyaha og cid kale ma og qaybu saasay leeyihin marka culammada kadib waxay ku magacaabeen almushabbiha qayb kale waxay dhaheen maya macnaheeda waan soo ogaanay raxmada ilaahay waa ixsaan raxmada ilaahay waa ixsaan istawuhuna waa bimacna alistiilaa wax laga xoog batay weeyaan saasay dhaheen marka waxay leeyihin macnihii baan intaan gaarnay ayaan sidaas u fasirnay leeyihin ilaan qofku markuu wax fasirahayo wax uu fasirahayo macnihiisii uu gaaray say isaga la tahay marka waxay leeyihiin macnihii intaan fahmnay iyo xaqiiqadii sifada iyo waxaa noo soo baxday inay sidaas tahay raxmadii bimacna alixsaan inay tahay istawaa bimacna alistiilaa inuu yahay yadii bimacna alqudra inay tahay aa noo soo baxday kuwaasna kuwaa wax taxriifiye waay marka markii la fiiriyo aayaadka mutashaabiha laba qaybood baa soo baxaysa oo ah qayb raasikhiin ah iyo qayb zaa'iqiin qaybta zaa'iqiinta ayaa daba socda raaca aayaadkaas mutashaabiha iyagoo hadaf xun u raacayo oo ah inay dad ku fitneeyaan macaani baatila intay sheegaan
ama ay hawadooda ku fasiraan. والراسخون في العلم وحن كدغينا marka mubtada والراسخون في العلم kuwa cilmiga ku sugan waa qaybtii labaad ee ah فأما الذين في قلوبهم زيغ أما سأكتهن وحرف تفصيل أقسام بدن وإن يجرتا أما السفينة فكانت لمساكين وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين. أما مركة تفصيل أي يكون إماتا سيدة غالبك. لكن الإمام ابن هشام في مغني اللبيب حليه مرمر وحاد عضه أما ذي انتان لحدفه هذا التفصيل كي لبعضه إلا كان بعد عضوه أما ذي انتان لحدفه تفصيل كي لبعض إلا كانوا أيضا أما لصعب أيضا نكون مثالين وحليه والراسخون في العلم وأما الراسخون في العلم وكلون. أما الزائغون فأما الذين في قلوبهم زيغ سدع سين نقدين قيبتي لبعضنا أول والراسخون أول أما ذي أول وكحد فانتهى. وأما الراسخون في العلم أيضا ليركون كو الراسخين تعلمك وعلمك كسوغان يقولون وحي إليهن آمنا به بالمتشابه وان رميني معناها ظاهر كا نوان فهمنا وقاضني حقيقة نوان رميني ما فهمين حقيقة الصفات يا قرنا إلهي با قرنا وان رميني لكن ما فهمين marka maxay ka jaahilihiin oo ay sallimeen xaqiiqadii kayfiyada sifadaha ilaahay maxay garanayaan macaanida guud ee sifadaha ilaahay waxay leeyihiin yaquluuna khabarkii waaye والراسخون في العلم يقولون waxay leeyihiin آمنا به بالمتشابه كل ضمان ومن المحكم والمتشابه محكم كي متشابه من عند ربنا حقيس أيوكي مال وما يذكروا من وانتهم إلا أولو الألباب. مركا رسوخ علمك ما قفك إنه آدوح يقانو كليه هو قفح يقانه معالم الدين كانوا كسوغان دينك أو يقانون أو كم مغضب يا راسخ ليه يقف أقوام بضن لكن دين أن كنت أجنين راسخ لما يرى. عبد الرحمن المعلم وهو يري عبد الملك بن مروان كان من كبار العلماء لكنه كان فاسقا لما له كروير راسخ في العلم كان من كبار العلماء في المدينة لكن مركو مدحوين النقضي فسق كان فاسق marka raasikhnimadu marka ma aha aqoon badan uu leeyahay aqoonuna waa jirtaa ku dhaqan aqooneedna waa jirtaa. bacd ulama yaa wax ka dhahdhahay raasikhnimada waxa uu yiri bacd salaf Naafi' ibn Yaziid wuxuu yiri yuqaalu الراسخون في العلم المتواضعون لله كو إلهي أتواضعون المتذللون لله في مرضاته إلهي سد الله رضا قوكيس لا يتعاظمون على من فوقهم ضدك كسر هي اسكموينيسيا ولا يحقرون من دونهم ضدك كهسينا محقران من كالوحو يري الراسخ في العلم من وجد في علمه 4 أشياء. الراسخ في العلم من وجد في نفسه 4 أشياء وأنك علمي سأفر سفقد حاله التقوى بينه وبين الله تقوى يا الله هذا أصدق يا الله تقوى
والتواضع بينه وبين الخلق سجى خلق أنا وحقول حياة تواضع خلقه تواضعا استمع وينيسي والزهد بينه وبين الدنيا زهد احقراد الدنيا أي سجى الدنيا أقول حياة والمجاهدة بينه وبين نفسه السجى هي النفس دي سنة دال بقول حياة نفس دي سدال بو أمرها دال بو نصارى ربنا مركا راسخين تي مركا يوغادين دد زائقين إنيهين إني جران كوا راعها يا متشابهاس إني زائقين مركا يوغادين أي إلهي وحي ويدين إنه سن قدرن أيك ربنا لا تزغ قلوبنا قلوبتنا اللي حين بعد إذ هديتنا مركي أدنه نسي كذب وهب لنا من لدنك رحمة وهب لنا نوهبي إنك من لدنك أكتاظ رحمة نوهبي إنك أذب أنت وحاتهي الوهاب وحبين بدن ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه أذب وحاتهي ذاتك مت كل مية وقبورته دي كسو كل مية ليوم في يوم مال لا ريب فيه وهو يوم القيامة إن الله لا يخلف الميعاد بل نكو قاضه مباجيه إن الذين كفروا كوا كفريي لن تغني عنهم كالديق ميس حقوذا أموالهم مال الكود ولا أولادهم إيا أولادود من الله من عذاب الله شيئا إلهي عذاب كيسو حبك الديق ميسو وكسو وجهيه وأولئك كواس هم وقود النار ووحى نار تلغشدو كدأب آل فرعون كواس وحي لمديهين دأب قود إعادة كدأب آل فرعون فرعون آل كيس عادديس أي عاددود أي طيب يا والذين من قبلهم آل فرعون كوي كهري عاددود كذبوا بآياتنا وحي بينيين آيات كان فأخذهم الله وهو قبطي الله إياك بذنوبهم أيوك قبطي الذنوب تودي السبب كذا والله شديد العقاب الله وهو يهي ميد العقاب في سدريه إن الذين كفروا كوا كفريي لن تغني عنهم أموالهم وحبك الديق ميسو أمواشو ذا إي أولادو من الله من عذاب الله شيئا مركا وحيالها بن آدم كمركا إلباتو سوى جهدو وإسكو الدفاع ومال كيسا أولاديس marka labadaas ay waxba tari waayeen wax kale waxba tari maayeen laakiin markii difaac laga waramayo labadaas ayaa la soo hordhigaa difaac laakiin shahwaad markii laga hadlayo si ayadana iman doonta wax kala lagu bilaabay zuyina linnaasi hubbu shahawaati min an-nisaa'i wal baniina ilmi gadaalay maray شهوة هوين باكو هرية لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار طيب هل كان الإمام ابن كثير أثر وكسر النقلي ابن أبي حاتم في تفسيره عن أم الفضل أم عبد الله بن عباس قالت بينما نحن بمكة مرة إنه مكة جوغنا إلادي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك استاغي من الليل فنادى هل بلغت اللهم إلى يوم قارسي هل بلغت 3 صباح كور فقام عمر بن الخطاب أي استاغي قال نعم قد قارسي ثم أصبح وبريس النبي
عمر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليظهرن الإسلام إسلام كو كسر مرهيا أديان تكليعا حتى يرد الكفر إلى مواطنه إلى كفره كجاره أو بوسسكي يدغان كيسي كجاره وغتغو ولا تخوضن البحار بالإسلام waxaad dhex mari doontiin oo dhex sheexi doontiin badaha idinkoo islaamkii wada wala ya'tiyanna 'ala an-naasi zamaanun waxa imaadona dadka u imaadona zamaan yata'allamuuna al-qur'aana wa yuqri'uuna ay qur'aanka akhriyaan dadkana ay u akhriyaan thumma yaquluuna waxay leeyihiin qad qara'naa wa 'alimnaa qur'aankii waan akhrinay waan baranay فمن هذا الذي هو خير منا وكما متك نغا خير بدن قرانا اقانا معلم بان اهي حافظ بان اهي ابوي خير بدن فهل في اولئك من خير هو سدا لها هي وخير مكجران قالوا يا رسول الله فمن اولئك كواس وكوما قال اولئك منكم كواس واذن كميدين نقضونان وأولئك هم وقود النار نسأل الله السلام أنا دادك هدي مركا قرآنك أي حفظين أما قرآنك أي يقانين لكن صفة وناكسن قرآنك إنه تأثيري ومعالمتي سي معاندي سي أي إلالي ويان وتأثيري ويو إلالي ويان وهذا أكرتين خطر أي قلان نسأل الله السلام طيب دأبهم كدأب آل فرعون كواس عادته دوحي تهي كفريي أو أمواشودي يا أولادودي أي وحباء أتري ويسي دأب عادته دوحي تهي كدأب آل فرعون آل فرعون آل كي فرعون عادته يا والذين من قبلهم مركا كواس كدن بيي أو كفريي آياتك إلهي فرعون آل كيسي وكل كوريي ماشي مرينا يمري دونان أيقون كذبوا بآياتنا آيات كانوا بينيين فرعون آل كيسي يكوي كوريي فأخذهم الله بذنوبه أيقون السوء كلي السوء يوم والله شديد العقاب قل للذين كفروا وحا كل هذا هو كفريي ستغلبون ولئن كأتكادونا وتحشرون إلى جهنم وحان لئن سؤروا جهنم وبئس المهاد وحان حن فراشك جهنم أياحن المخصوص بالذم ومحذوف جهنم قد كان لكم وحا إذن صغناتي آية في فئتين لبكو حود أي آية إنكو جرتا التقطا أكلمي فئة كوحو تقاتل في سبيل الله ويكون دقالما يسوي الضضي الله وأخرى وفرقة أخرى كوح كلنا كافرة ويا طيب تقاتل في سبيل الشيطان مركا في فئة سياق دم waxa laga fahmaa inay mu'mino tahay ilaa وأخرى كافرة هي ka dambayda fi'adan marka maxay tahay فئة مؤمنة طيب تقاتل في سبيل الله هذه مدي مؤمنة هيت في سبيل الله يكون دغالميسو تكافرهم waxay ku dagaalami doontaa في سبيل الشيطان marka mar hadii ay soo hormartay في سبيل الله garo kooxda kale inay tahay في سبيل الشيطان kooxda dambe hadii la yiri ukhra kaafira kooxda kore inay tahay mu'miniin iska garo wa ukhra kaafira maxaa ka soo horjeeda فئة مؤمنة يرونهم وحي أركايين كوحدة مؤمنين تهو وحي أركايين كوحدة
kaafiriinta ah milayhim labanlaabkooda inay yihiin. ra'y alcayni fii ra'yi alcayni waa isha aragtideeda. wallaahu yu'ayidu wuxuu ku xoojiyaa binasrihi gargaarkiisa iyo guushiisa man yashaa'u ninkuu doonahayo. inna fii daalika arrinkaas waxaa ku jira lacibratan cibrad liuli labsaar kuwa leh cuquusha ayay aayad ugu jirtaa. ayib qul liladiina nebiga waxaa leeyahay waxaa ku dhahdaa kuwa kufriyey satuglabuuna adduunyada waa laydinkaga adkaa doonaa watuxsharuuna yowma alqiyaamati ilaa jahannam. yowma alqiyaamana jahannama laydin soo kulmi doona. wabi'sa almihaadu bi'sa alfiraashu waxaana xun firaashka oo jahannama. halkan wuxuu leeyahay alimaam ibnu kaiir sida uu ibnu isxaaq ka soo naqliyey rasuulka sala allahu calayhi wasalama markii uu reer badar waxa uu ka asiibay oo madiine uu u soo laabtay yahuudii uu kulmiyey fii suuqi bani qaynuqaac. markaasuu ku yidhi yaa macshara yahuuda aslimuu qabla an yusiibakum allahu bima asaaba qurayshan. soo islaama intaan ilaahay idinku asiibin wuxuu quraysh uu ku asiibay. markaasay dhaheen yaa muxamed laa yaqurannaka min nafsika nafsadaada yayna kida kaa gelinin an qatalta nafsan min quraysh koox quraysh ka mida inaad dishay kaanuu aqmaaran laa arifun qitaal dhiman aan waxba garanayn dagaalna waxba ka fahamsanayn ahaayeense. innaka wallaahi low qaataltanaa adiguse haddaana la dagaalami laheed la carafta annaa naxnu naasa jacjac waay waxaad ogaa laheed inaan dad nahay inagu wa annaka lam talqa milanaa faanzala allahu fii dalika allah wuxuu soo dejiyey qul liladiina kafaruu satuglabuuna watuxsharuuna. meeshay mareen aad inkuna mari doonteen quraysh. wabi'sa almihaad. ayib qad kaana lakum waxaa idiin sugnaatay khitaabka dadka muslimiinta ah iyuu u dhacayaa. qolana waxay leeyihiin wuxuu u dhacahayaa yahuudii qudhoodii bal yahuudii kuwa qad kaana lakum ayuha alyahuud oo sidaa u hadlayaa waxaa idiin sugnaatay aayatun aayad fii fi'atayni laba kooxood iltaqata ee kulmay fi'atun mu'minatun tuqaatilu fii sabiili koox mu'minad ah waddada ilaahay ku dagaalamaysa wa ukhraa kaafiratun tuqaatilu fii sabiili shaytaan waa iska garanaysa. yarawna faa'ilkeeda waxaa ka dhigtaa muslimiintii yowma badrin dagaalamaysay. humta oo mafcuulkaana waxaa ka dhigtaa qurayshtii dagaalka kula jirtay nebiga iyo saxaabadiisa yowma badr. yarawnahum waxay arkaayeen mu'miniintu milayhim labalaabkooda inay gaalada yihiin ay arkaayeen yowma badr. markay fiiriyaan ra'yal cayn aragtida yani waxay arkaayeen inay yihiin labalaabkooda. ayib kadibna markii hore waxay arkaayeen inay yihiin lamalaabkoodana ma ahayn 900 ilaa 1000 inta u dhaxayda yay ahaayeen. marxaladaas waa ka soo gudbeen. mar kaley fiiriyeen waxay dhaheen alla ilaahay waa nala egyihiin nagama badno hal nin nama dheera. ilaahay baa wax la doonayay. marxaladaasna waa ka soo gudbeenoo misana mar kale fiiriyeen markaasay warariya 70 ma dhan yihiin waxaan taasay dhahay. marka waxa ilaahay doonayay inuu ku dhiiri geliyo oo qalbigooda uu ku sugo mar hadday aaminsan yihiin ama ay la tahay inay 70 bayna dhammayn inay soo qaqabo karaan.
cabdullaahi bnu mascuud baa wuxuu yidhi nadarna ila almushrikiina mushrikiintii baan fiirnay yowma badr fara'aynaahum yadcufuuna calayna waxaan aragnay inay lamalaabkeenna yihiin uma nadarnaa isana waan fiirnay famaa ra'aynaahum yaziiduuna calayna rajulan waaxidan waxaan aragnay inaysan halna na dheerayn ee ayna la sinan yihiin uma qallalahum allahu aydan fii acyunina isana ilaahay waa sii yareeyey xataa ra'aynaahum cadadan yasiiran aqala min anfusihim inay innaga naga yar yihiin laqad qulliluu fii acyunina yowma badrin xataa qultu lirajulin ilaa janbii taraahum sabciin ilaahay aad buu indhahan ugu yaray ilaa markii dambe nin ila taagnaan ku ilaalyaa sabciin inay dhan yihiin ma u malaynaysa dabaatan inay dhan yihiin nimankan mushrikiinta aayadda ku jirta في سورة الأنفال وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللهم وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا أيها وحالة السيئ إن أذنكم يرتهين قريشتي مشركين تأها ويقللكم في أعينهم أذين كان وإذن يريناي في أعينهم marka iyagu gaalada markay muslimiinta fiiriyaan waxay leeyihiin wax yar waay ala soo qaba kara jur'ay qaateen muslimiintiina markii u dambeeyay waxay la gaartay fiiradii inay leeyihiin 70 ma leeyihiin ayagana jur'ay heleen ilaahay marka waa isku yaaciyay qolada kale ay leedahay soo qabta ala soo qabto 70 kama badna liyaqdi allah ilaahay arin buu doonahay marka liyaqdi allah si ilaahay uu xukmiyo amran arin kana maf'uulan طيب والله يؤيد بنصر من يشاء إن في ذلك العبرة لأولي الأبصار وإذ يريكمهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا قالوا مركا إيه أركان وحي الأهد وحير إليهم ويقللكم في أعينهم ليقضي الله مركا قولا والبه waa loo yareeyay qolada kale markaas bay qolo walba jur'ay yeesheen markaas baa ilaahay iska hor keenay wuxuu doonayay oo xukmiyay yaana dhacay oo ah in la soo gumaaday oo laga dhigo wax la laayay wax la qafaalay wallahu a'lam sallallahu alayhi wa sallam ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi